waxyaabaha aan arki karno waxaa ka mid ah barigii hore ma badnayn dadka loo yaqaano tababaro nololeed jiilkan jilicsan ayay ku soo ifbixeen waad samayn kartaa xaq baad u leedahay waa markaagii iyo erayo aqoon oo dhan ka maran oo jiilka rabitaankiisa oo kaliya u adeegaya mararka qaarkood waxaad moodaysaa dad nafsad ahaan u xanuunsan in ay la hadlayaan wayba la hadlayaane dad meel la isugu keenay oo la leeyahay gacmaha kor u taag waan samayn karaa dheh yaas dheh bal intaas maxay ka bedelaysaa nolosha qofka ugu dambayn maxaa xal ah doctor Ismaaciil iyo dhaqaatiirta cilmu nafsiga ee mawduucan wax ka qortayba talooyinka ay soo jeediyeen waxaa ka mid ah kow waalidku waa in caruurta mas'uuliyadda baraan inta ay yar yihiin waa in cunugu wax un shaqo qabto oo lagu aamino inta uu yar yahay labo in kolkoolinta saa'idka ilmaha laga daayo cunuga la qabsaday wax kasta oo uu rabo in la siiyo yaa islaama oo hadhow ka dhaadhicin kara in noloshu dhinac qaraar ay leedahay in aan la heli karin wax kasta oo loo baahdo mushkiladan waa mid keentay in maanta dhalinyaro badan markii ay culeysyo adduun soo food saaraan ay diinta ka baxaan saddex ilaalinta xaddaafka ah wax ma tarto ee way uga dartaa ilmaha haddii ay noqdaan ilaalinta caafimaadkiisa iyo ilaalinta amnigaba sida ay sheegayaan labada qoraa ee buugga suuraynta caqliga daraasad Mareykan oo la sameeyay oo ku saabsaneyd cudurka xasaasiyadda iyo waxyaabaha keena ayaa natiijadu waxa ay noqotay inay kow ka tahay iska ilaalinta waxyaabaha cudurkaas keena mid ka mid ah baarayaashii ayaa ku soo gabagabeeyay tala dhahaysa caruurtiina ka fogeeyay waxyaabaha xasaasiyadda keena waa talo gebi ahaanba qaldan hadda ma garatay sababta ay caruurta hantiilayaasha ee biyaha tubada xitaa laga ilaaliyo ay maalin kasta isbitaalada u taagan yihiin kuwa danyarta ah ee biyaha calowga cabana ay kaaga xoog badan yihiin haddii aad jiilkan ka mid tahay iska ilow erayada huuhaada ah ee dhagahaaga laga badiyay xaq baad u leedahay waad mudan tahay iyo waxyaabo kale oo la mid ah wax aad gaar u mudan tahay ma jiraan noloshani waa qofkii u halgama halgal la'aan ha sugin inaad cidlo ka cantoobsato inta aad yar tahay shaqada isbar caqligaaga kori jiljalaaca iska ilow waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkii caanka noqday ee ibnu qayyim al-jawzi cuqaasha ummadaha oo dhami waxay isku raaceen inaan barwaaqo raaxo lagu gaarin